بسم الله والحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله تعالى waxyar ka sheegi doonaa kelmad beryahan dambe soo shaaca baxday ee bulshada ku dhex faaftay oo inta badan la isla dhex maro. kelmadaasoo ah keep going. Keep going ma aqaan haddii aan si sax u iri pronunciation-ka, laakiin waa kelmad ingiriis ah oo af Soomaali waxay ku noqon kartaa waa cayaartay ama waa fiicantii saas ku soco. walaalayaal beryahan dambe waxaa soo batay dadka haba ugu badnaadaan dhalinyarada nugu qof qalad sameeyaha arko wuxuu inta badan waxaa dhacdo in la yidhaah keep going, waa fiicantii saas ku soco. marka walaalayaal kelmadaas sax ma ahan. qofka walaalka ah haddii uu qalad ku jiro ee uu naar ku socdo ee uu meelaan mudnayn lugta kula jiro waa inaad tiraahdo arka joog iyo ka joog. sax ma aha inaad dhahdo waaye. laakiin haddaad tiraahdo keep going waxay la mid tahay adigoo ugu kaalmeeyey xumaan. ilaahayna waxa uu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi. war wanaagga isugu kaalmeeya laakiin xumaanta ha isugu kaalmaynina. muga walaalayaal kelmadaas aan iska tirtirna insha allahu tacaala. suubanaha sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu arkay cunug yar oo wuxuu arkay oo fargal dahab ah gacanta ugu jirto. mugaasoo wuxuu iri iska bixi iri kan rag looguma talagelin. cunugii fargalka waa tuuriyey. markuu tuuriyey ay waxay yidhahaan saxaabtii war ha iska tuurin adaa iska leh ama gado ama qof kale oo ku sadaqayso gabar ah. yani waxa lagugu diiday waxay aheeday inaadan isticmaalin, laakiin waa gadan kartaa oo si kale ugu manaafacaad. mugaasoo wuxuu yiri wallahi baan ku dhaartee fargal nabi maxamed gacantiisa iiga siibay inaanan dib u isticmaalin. muga walaalayaal nabiga sallallahu calayhi wasalama inta uu hadal ku suuliyey iyo inta uu gacanta ku suuliyey iyo inta uu maqal ku suuliyey macnaa mid kastaba waxaa waaye meesha ay ka mudan tahay ayuu ku samey jiray. muga walaal amba walaalay haddii aad aragto qof qalad ku jiro, haddii aad aragto qof meel qaldan taagan, haddii aad aragto qof kale xamanaayo, haddii aad aragto qof madax qaawan, keep going haddiina waxaad leedahay jooji. waayo nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasalama walaalkaa u nasteexay haddii uu qaldan yahay qaladka ka qabo arag jooji dhe u nasteexay. muga walaalayaal taas aad ku baraarujin insha allahu tacaala. kelmadaas keep going aan meesheeda uga tagno, wixii wanaagana aan isfarno. waayo ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar. waxaad ahaateen ummad midda ugu khayr badan ummadihii soo maray adduunkan. ummadda ugu khayr badan ayaynu nahay. waxaana u nahay ummadda ugu khayr badan in magacayna cali iyo maxamed iyo caasho iyo xaliimo iyo sacdiyo ka bilowda ma ahane. waxaan ugu khayr badannahay inaan wanaaggana farno dadka xumaantana ka reebno. muga haddaan wanaagga fari weyno ee xumaanta ka reebi weyno macnaheeda kuntum khayra ummatin naqan mayno ee kuntum shara ummatin aan naqanaynaa. kuntum shara ummatin ha isku naqanin. marka kuntum khayra ummatin ayaa ilaahay kuu qoondeeyey, ilaahay yaa ku siiyey, hibo ilaahay ka timid waaye. taas ku adkayso. wixii wanaag ah ee aad aragto qofka ugu mahadi maasha allah waa mahadsantaha dheh. ilaahay subxana watacaala ugu xamdi celi. qofka wanaagiisa uu sameeyaha aragtidna ku taageer. qofka xumaan sameeyahaayo wanaaggii bedelkiisa waxaad leedahay jooji gacanta ka qabo. si adigana maalintii yowm alqiyaamo adigoo jecel in gacanta lagaa qabto oo meel jinnaa lagu geeyo si ilaahay kuugu maalinta yowm alqiyaamo ilaahay uu kaaga dhigo qof najaxay oo liibaanay. hada wabillahi tawfiiq.